نفورة وحن قادني دقمو وحن كو قادني هدي أن يدين شيغو marka ugu horeysa waxa ugu badan qofka bani aadamka waxyaabaha cajiibka anagu dhibaatooyinkan iyo dagaaladan sokeeyaan ka dhaxalnay waxa kamid ah ilaahay magaciisa waan ku dhaaranayaa in dad wada noolaa 70 sano markii dagaalada iyo burburka dhaceen inay isweydiiyeen qabiiladii kala hayeen rag deris ahaa عيشوا ملحها إسلام نونا إجعلوا وحولا قيبسانيي بعد دقالة مركي دعين بيثبانا وحيين ديقان كوا مدكا يدقمدوا أخنتا سببتا وحي كمتاي فائدوين كيلا وحا مانتا نوحر مايا شركي رأي أورنتا جبلان قيبتي هيقول هاد ومانتا لغا حرا يصدح ميلون هل كانوا عليها الحرة وانتا ديال إدمو قبلي أوتو وسيركا أرنها كل شدا يوم درباري ومدحولي كحليتي سنة وفري ما تروح على طران تلاقا وحاسليا يجب لان وحي موجيين وحادي تارد وقالي دونو ونفسن رأي الغوزي إن لحي لنا عملنا وقود دالي ما دام عنها وسيركي جبلا وبتلاقي قد هولك وأولجرو وسير حسين مدن وسير نصيب ما أنت عليها وكيل كعدولتي عليها وحيرة دونا وحاسب كلياي ما أنت رأيي وناك أي سماء رجبلان وحل سوكوب كرماها آدي أي هو نفسه مركو حليه رجبلان وهذا الدولة نمر آدي تعالي وأنا كم وقطع أنا كوكيلة رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية مدن عمر عبد الشيد علي شرماكي كانت ترجمة يا جودية هوجلكا تاسك فورس arrimahan doorashooyinka waxay saaran runtii waxaan aad ugu faraxsanahay qaabka ay u dhacday wada tashigan oo aan ku tilmaami karo markaan xog waransaday meel badan inuu yahay haduusan ahayn ka koowaad kuwa ugu fiican ee dhacay labadii maalmood ee haddaan soo dhaafnay waan kugu hambalinaynaa reer Jubbaland annagu taladii kuma lahayn taladii idinkaa iskale waxaan ka ballan qaadaynaa xukuumadda haddaan nahay in talooyinkiini fikirkiini aan gudbino bisha Decemberna waxaa isugu imaan doonaa ergooyinkii iyo madaxdiinii oo madaxweynaha Jubbaland ugu horeeyay dowlad goboleedyada oo dhan iyo madaxda dowladda qaranka waxay isugu imaan doonaan magaalada Muqdisho halkaas ayaana talooyinkii la soo aruuriyay gobollada laga soo aruuriyay kuwa diaspora laga keenay intaba la isugu imaan doonaa waxaan rabaa aniga hadal badan hadda maan istaagin hadal wixii halkan ka yeelay waa noogu filan dadka Soomaaliyeed ee ku abtirsada Jubbaland doodii ay doodeen wixii ka soo baxay waxaan maranayaa reer Jubbaland inay raalli ka noqdeen oo ay ku qanceen wasiirka iyo wafdiga oo hogaaminaya dowladda federaalka mas-uuliyiinta wasiirada iyo xildhibaanadana waxaan isleeyahay annagoo marayna sifihii sharcigu ahaa oo aad soo qorteen oo aan waqtigana ka hor dhicin kana dabdhicin hal qodobna aan ka boodin waa nasiib wanaag goobjoog inaad ka aataan maanta dadkii oo halkan ka hadlaya waxay rabaan hortiina ka sheeg